بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تحبه وترضاه. وبعد، waxaan isku dayi doonaa haddii alla yidhaahdo subxaanaه wa tacaala inaan wax ka tilmaamo mowduucan u bixiyey ta'amulaat fii mustaqbal aljaaliya الsoomaaliya fi اlgarb. wuxuu ku saabsanaan doonaa mowduucaasi inaanu u fiirsanno ama se aan odorosno bulshada Soomaaliyeed ee soo barakacday, soo guurtay, dabadda degtay, iyo mustaqbalkeedu siduu u ekaan doono. mustaqbalku waa qayb oo alla og subxaanahu wa tacaala, laakiin waxaan adeegsan doonaa waxyaabaha wax lagu baxsiyo ee lagu sameeyo bal in wax laga saadaalin karo. markaan erayadan tilmaami doono waa ra'yi qof ka mida dadka ku nool qarbiga ee jaaliyadda ka midi. waa ra'yi inuu sax yahayna dhici karto, inuu seegseegaana ay dhici karto. waxaan ugu talagalay inaan soo bandhigo waxaan dhibta u arki karo iyo waxaan xalka u arki karo, laakiin waxaan ugu talagalay inay noqoto su'aal aan maskaxdiinna dib ugu soo celiyo, oo ah inuu mujtamaca kan ku nool galbeedku ee Soomaaliyeed in badan uu fakero, in badan uu indhaindheeyo, in badan uu isku dayo siduu jiritaankiisu u sugmi lahaa. waxaa mowduuca mu'tamarkeennu ahaa sida loo badbaadinayo wasaa'il inqaadi lumma, qaabka loo badbaadin karo ummadda. waxaan rabaa inuu markaasi jaanibkani noqdo bal sidee loo badbaadin karaa kuwan dabadda jooga. aan marka koowaad su'aal ku bilaabo. dadka xaggan joogaa miyuu noqonayaa, ma guurayaa? waa su'aal in badan soo noqnoqota. waxaan leeyahay dadka halkan jooga ee galbeedka soo degay, inta aanan ka warramin degitaanka galbeedku miyuu bannaanyay mise ma bannaana, waxaan ka warramayaa waaqicu iyo siduu u eg yahay. waxaan leenahay markaas jaaliyadda Soomaaliyeed ee galbeedka deggan afkaarteeda marka la isku daro waa saddex kooxood. kooxda koowaad waxa ay habeen iyo maalinba ku riyoonayaan oo ay rumaysan yihiin in la noqdo, in meesha tan laga tago. waxa ay tilmaamayaan meeshan joogitaankeedu inaanay mustaqbal lahayn, ay ku qanacsan yihiin. waxay ku qanacsan yihiin inay noqdaan, laakiin kooxdaasi ma badna. waayo markaan indhaindheeyey dadka, su'aal baan weydiiyey dad badan ama aan indhaindhayn ku aagay ah inaan qofka weydiiyo bitaxdiid goormuu rabaa inuu noqdo, marka uuse maxay hela buu rabaa inuu noqdo. dadka inta ugu badan leh waxaan ka arkay inay rabaan inay noqdaan marka ay jawaaska waddanka qaataan, baasaboorka markay helaan, iyo marka ay waxoogaa urursadaan.
su-aasha isweydiinta le waxay tahay hadduu qofkani ku qanacsan yahay inuu noqdo oo uu guuro oo uu galbeedka iskaga tago muxuu u sugayaa baasaboorkooda muxuu ku falayaa wuxuu rumaysan yahay halkii soomaalidu maxay odhan jireen lugna diriir ugu joog lugna baqa ugu joogtii waxaanu mutma'in ku ahaynoo ku qalbi samayn meesha uu ku socdo meeshii u degi lahaa ayaanu ku qalbi samayn tanna wuu ka go'ay meel dhexuu markaa lalmanaya laakiin horta waa ka go'an inuu tijaabiyo inuu tago inuu tijaabiyo waxaan si arkay in badani inay soo noqotay waa jiraan afraad kaga dhabeeyey inay tagaan aan soo noqon laakiin in badan oo ama ninku tegey ama ninkii yar gabadhiiba israaceen ama dadkii wada guureen oo soo noqotay baa jirta kooxda labaad ama daa'ifadaas mooyaane daa'ifada ku xigta waxay arkayaan yani kooxdaa hore mowqifkaasay taagan yihin waana laga yaabaa xataa environmentku inuu raad ku leeyahy oo markuu xaggoo tegay environmentkan uu bartay ee nabaddan iyo lacagtan iyo waxbarashadan iyo waxaan wada socda inuu waayo dabeetana adkaysan kari waayo kooxda labaad waa kooxda dadku ugu badan yahay bulshada galbeedka degani waa kooxda ay ugu badan tahay kooxdani waxay rumaysan tahay waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin daa'ifatu tamani waa koox yididiilo ku nool iyo riyo kooxdii hore camal bay isku daysa ama ha hirgalo ama yuu hirgelini laakiin kooxdani maaha kooxda camalka isku dayaysa qadiyaddaasi uma socdaan camaliyan xagga maskaxdase way ka dareensan yihin kooxda tani waxay dareentay dhowr shay koowoo dadku wada dareensanya alghurba waxay dareemeen qofku dhul aanu lahayn ku noolaanshiyihiisa dhibta ka timaada waxay dareemeen baa laga yaabaa alcunsuriya nooc min alcadaadis iyo raasism lagu wado waxay dareemeen baa laga yaabaa tafasukh ilawlaad carruurtii iyo reerkii oo ka burburay iyo ninkii iyo gabadhii oo isdilay iyo carruurtii oo aan gacan ugu jirin iyo dhib badan oo haysata waxa uu dareemay halkan aanu waxba ka ahayn bulshadan markuu isku qiimeeyo uu yahay tabaqa almanbuuda tabaqadii la tuuray inuu yahay oo maaha nin nafle marka bulshada tan lagu eego intaaba wuu isugu sheekaynaya uu ku qanacsan yahay laakiin daa'ifo camaliya maaha intaasba waa xaqiiqo uu taabtay oo cidi uga warrami mayso mase raba inuu ka baxo waa dadku dhanka ay ugu badan yihiin waa dadka inta ugu tirada badan leh markay intan oo dhan garteen waxay kaga soo hadhay markaa inay ka sheekeeyaan una ka warramaan fii majaalis alkhaasa aw alcaama ama meel walba baroordiiqdun baa jirta oo waa laga sheekaynaya dabaqadaasi waxaa laga yaabaa inay u arkayaan wakhtigan ay iminka nool yihiin inaanay waxba bal aan eegno mustaqbalkiiyo wuxuu noqdo ilaahay baa hagaajintaas u taagan yihi dabaqada saddexaad oo iyaguna koox yar ah aan weli badnayn wakhtiga hadda la joogo waa koox aan ku qanacsanayn inay noqoto waa koox ku qanacsan iyagu meeshan inay barwaaqiya nimcatay waa koox ku qanacsan waa طaa'ifa yacni munhazima daakhiliyan
xadaarada reer galbeedka la weynaatay waa koox laba qaybood miduuna dad markii hore iskaga kobcay meel baadiya ama meel xadaarada iyo waxaba ka fogo waxaan markay arkeen un dawakhay ama se dad asxaabu shahawaatah وحرية الخمور حرية التعري حرية الديسكو حرية عدم الحياة يعني وحود حريات الله يدهده بو هلاي وهل كانوا كهلي كرندي سيده درادد وحو اسغو انجوي غرينيا وحو كفر حسنيي انه halkan joogo wuxuu arkaa fursada inay tahay uu ka faa'iideeyo oo fursad hore u soo dhaaftay ama aanu xaq ku helaynin ayuu arkaa waxaan leenahay tabaqaadka mujtamaceenu saddexdaa kooxood baynu nahay fama alxal haddaba waxa aad u habboon intaynan xalka raadin inaynu fahamno waxyaabaha waaqicu uu yeedhinayo horta inta tegi karta iyadu ku wada hadal ma leh ama gurrimaadku ka dhabiye ama ku qanacsan inay tagto inay meeshay dad ku noqon lahaayeen qabtaan laakiin dadka inta ugu badani waxa ka muuqata inay joogayaan sababtu waxay doontaba ha noqotee hadduu kaasi yahay waaqaca aan la iska indhaqarin karin waa inaynu shay ogaannaa shaygaynu u baahannay inaynu ogaannaa waxa weeyaan متطلبات العيش في الغرب هل كان هدي للربا إن لا جوجو وين إنه قرنا وحا وباهية هيسي هل كان لا جوجي كرا وين إنه دراسينا وحلقة يا باون إنه دراسة إنه إنكو سمنت هيون أوهنت وكشكيرنا كشكيرنا مركن نضافنا مالها تقنا نقفكم مركو كويدا قلبات كورن weli maan arag qof wax kale ka sheegaya qof dhibteenna taxaya mooyaane carruurtii baa naga tagtay kambaasidan yeela meeshan waa caynka wax allaaliya wax mashkiladina haysatun buu akhriya laakiin dee dadku kama dhegaystaan ila isba ka iman waaye way ka daba yimaadaan mar haddii intaad ku akhrido adiga uu jeebka kugu jiro tigidhkii iyo baasaboorkii aad soo dhoofayso haddana cidina kaa dhegaysan maysa ilaa waxaan hadday dhab yihiin adba waad ka joogi lahayd uu kaa soo daba duulaya isaguna waxaan leenahay mawduuca kan uma baahna canaan badan oohinta iyo canaantu waa ariiqatu alcaajisiin baa la ydhahaa waa qaabka dadka aan waxba qaban karin ay adeegsadaan qofku goormuu ooyaa dee markuu tamarta kala waayo yacni ilmuhu hadduu wax iska dhici karayo ma ooyo u dagaalamaa laakiin marka uu waxba iska dhicin kari waaye uu si dhiibo ayuu ooyaa oohintani waa nooc min atanafus inuu yaro nafiso un balaatan shucuurkiisa waxaan inuu ka sii yaro daayo u yaro nafiso waxaad moodaa dadku intay isdhiibeen oo kale hadalbadnidan ceebta meesha la akhrinaya waa nooc min atanafusun bal in la yaro nafiso oo la iska sii yaro daayo hadalka sida daraaddeed waxaan leeyahay waxaynu u baahnay daraasa daraasadaasi waxaan ugu horraysiinayaa dhowr shay kow meesha bini aadamku uu degaa maaha had iyo goor holo environment yacni meel firaaqa lama dego meel kastaa tidhaha degdeg baa degan nolol baa ka jirta ceesh baa ka jira waa inaad fahamtaa markaa meeshanaad rabta inaad degto waxaa jira waxay yidhaahdaan culammadu tasaadum alxadaaraat iska hor imaatinka dhaqamada iyo xadaaradaha aan islahayn hadday kuwaasi kulmaan maxaa dhaca saddex mid unbaa dhaca baa la yidhaahdaa markuu qofku yimaado bulsho aanu la dhaqan ahayn oo la diin ahayn oo la caqiide ahayn oo la aragti ahayn oo waxba la ahayn saddex mid unbuu noqdaa qola waxay tidhaahdaa wax walba no waa naay buu taagan yihi solution kaloo haystaa ma jiro inta badanna waxay u badan yihiin qolada dhaqankiisii iyo diintiisii iyo wixiisii uu rumaysan laakiin aan garan karin dadkan siduu ula macaamilo ama se aan garan karin fahmi karin jaanibkan kale waxa uu xidhiidhka ka dhaxayn karaa wuxuu yahay dabeetna wuxuu ku mintidaa
waar intaada yay ku seejinin nimanka albaabka ka xidho habaarqabayaashaas yay ku dhaafinin halkaage albaabka ka xidho wax kastoo xaggooda ka yimaada naayuunbuu kaga jawaaba carruurtaadu saan ma yeelaysaa may ma weydiiyo waxaa la yeelayaa muxuu yahay iyo maxaa la qabanayaa toona waa may buu isagu taagaya adugu waxaan ma qabanaysaa may qoladan wax ma laga qaadanaya may waa may waa kuwa iyagu ku tilmaamaan reer galbeedku isolation buu galaa bay idhaahdaan xabsi infiraadi ayuu isku xidhaa qofkan nayla ah isaga dhib baa haysato isagu naydaasu ku dhinta laakiin dee nay tarbiya ma noqotee kooxda ka dambaysa albaabkay furtaa ilaa nay tarbiya maaha may maaha tarbiyo kooxda labaad waa koox laba qolo isugu jirta oo labadii qolo aynu soo sheegnay baa laga yaaba inay isugu jiraan in badanoo ka midi waa koox imaa jabtay oo caqliyan u burburtay oo isidhi war nimankaa dayaxa gaadhay ee daaraha dhaadheer dhistay ee dhulka hoos maray malaa wixii ka yimaadaba waa iska khayruuna hala raaco dhibna ka arki mayne oo nafsiyan u jaban amase oo sababuljahl uu ku wado amase waa koox tamar daraysay markaad tidhaahdo war maxaa dhacay wuxuu leeyahay dee maxaan yeelaa kale ilmihii maqli waa kani maqli waa waxaan cayn ka noqday kama raalle aha laakiin taladiisu wax weeyaan dee maxaan kale yeelaa yacni waan ku qasbanay markaa haddii la yidhaha halkaa ilmuhu ha tago waxa hala qabto wax walba uu iska samaynayaa uma samaynaya qanaaco uu ku qanacsan yahay laakiin wuxuu samaynayaa cajzi uu cajsi galay oo tamar gabay oo uu isleeyahay waxba ma qabsan kartid dabeetana waa yaalayaal kuwaasi yaa wax waliba weeyaan waa kuway gaaladu yidhahdaan assimilation way milmaan qolada milanka kooxda saddexaad bay yidhaahdaane xadaaraadku markay isu yimaadaan waa kooxda isku dayda bay yidhaahdaan altamxiisu bayna alxaqi waalbaatil inuu qofku isku dayo inuu kala saaro xaqa iyo baatilka waayo xaqu meel kastoo ka yimaada in la qaataa waajiba walow min ashayطaan shaydaankii abu hurayra aayad kursiga u sheegay muxuu nebigu ku yidhi sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay isagoo beenaala ah yacni alxaqu axaqu an yutabac laakiin si ay taasi u dhacdo kooxdani waa inay noqotaa koox ahlulcilmiya waa inay noqotaa koox hawaabit leh muctaqadaad sugan oo ilaa iyo gumadda galay oo aan ka foqaynin koox wadata waa inay noqotaa koox miisaan haysata waxay wax ku qiimayso markay wax qaadanayso ama wax ka tegayso waxay haysaa waxay wax ku qiimayso waa inay noqotaa koox diraasa samayn karta wax baadhi karta kooxda tan waxa u asala atafaahum waxa la yidhaahdo haa iyo maya intaanu ku jawaabin wuxuu isku daya horta inuu waxa fahmo waxan inuu fahmo ayuu isku dayaa sida daraaddeed wuxuu taagan yahay isagu wixii xun dhan kasta ha ka yimaadaana in la diido wixii wanaagsani dhan kasta ha ka yimaadaana in la aqbalo waana kooxda nolol dhaban noolaan karta haddii ay meel deganaanayso waayo labada kooxood ee hore kooxidda iyadu way jabtay oo way isdhiibtay kooxdii isxidhxidhayna jiilka dambe ma xukumi karto ee iyana ooduu jebinaya laakiin kooxda tani waa koox istimraariya samayn karta jiritaan bay sii samayn kartaa qadayadaasi marka hore waa inay agteenna iyaduna noqotaa shay aynu fahmno arrin labaad baa u baahan markaa inaynu fahmno iyana arrinta labaad ee u baahan inaan fahmnaa waxay tahay mar haddaynu nidhi waxaynu u baahannahay faham noloshan inaynu wax ka garannaa xaqaa'iq horta inaynu garanno marka ugu horraysa kow xaqiiqada koowaad waxay tahay waa inaynu fahmnaa mujtamaca kan inaynu taari ku nahy annana taari'uuna calaa hada almujtamac qole ku soo darriday inaynu nahy maxaan uga jeedaa laynama casuumin inta casuumad laguu fidiyey dabeetana maad imanoo xuquuqda noocaasiya ma lihid wuu yaryey qofo midharhka meelaha laga soo qaato
wax kastaba dheeye guriye qola baabiisay qola caynkan dhe adigu adoo iswadaa timi fadal cidi kuma odhanay adoo iswadaa timi oo qaylinaya deetana waad si dhiibto waa lagu yeelay maadaama adigu aad taari tahay waxaad timi mujtamac organized ah mujtamac dhisan baad u timi qaanuunkiisii dhaqankiisii hidihiisii ujeeddadiisii meeshuu u socday mujtamac dhan oo kaamila oo meel u socda ayaad soo dhex gashay waxaanad rabtaa markaas sidee inaad la noolaato sida ka muuqata marka waa inaad fahamtaa mujtamaca kan kow qadiyadda labaad waxay tahay waa inaan garannaa qiyaaska qaldan joojinna qiyaaska qaldani muxuu yihi maalan waxay dadku ku doodaan yuhuudda waxan bay u qabtaan kiristanku waxan bay u sameeyaan waxan baa loo sameeya qaanuunku waxan buu ogolyahay halkan bay u ogolyihin innagana waxba laynooma ogola waa qiyaas qaldan waayo yuhuuddu acmaqu minka jadra way kaa gundheertay bulshadan way kaaga aqoon badantay way kaaga soo horraysay habeen iyo maalin wax laguma siinin 2,000 sannadood baa la garaacay oo la tumayey laakiin dadaal iyo organisation iyo ururayn iyo way u soo dhidideen inay halkan soo gaadhaan cidima odhan yuhuuddu waa dad muqadas ee halkan fadhfadhiisto lama cidi kuma soo dhoweyn idan inaad isku qiyaasto tidhaahdo yuhuudda iskuulla brifata loo gelay annagana looma ogola kuwa waxbaa loo waa qiyaas qaldan waayo meesha laysma casuumee waxbaa la kala dhacsadaa xaqiiqada saddexaad ee u baahan inaynu si fiican u fahmnaa waxa weeyaan waxaynu nahay dad mutafariqiin ah dad aan organized ahayn ha yimaadaane bikulli macna alkelima dad si kasta u kala daadsan muslimiin oo dhan ka soomaali ahaan ka qabiil ahaan ka wadaadda ahaan ka nooc walba dad kala daadsan oo aan bidaysnayn xaqiiqada afraad ee u baahan inaynu fahmnaa waxay tahay maynan bislaanin bisaylkii loo baahnaa laakiin waynu iska fadhfadhinaayo mustaqbal majhuula baynu sugaynaa lacalla in beri uun laga dhiso madraso islaamiya ama mar uun in wax la qabto ama cid kale inay wax qabato uun xaqaa'iqda waxaan ku gebagabaynayaa iyadana hadday sida iminka tahay ku socoto oo iyadoo waxaasoo dhammi jiraan sidaa un loo daayo mustaqbalka majhuulkaa la sugo nooc kastaba saddexdii daa'ifo ah oo da'da dambe waa da aad u fog in la soo helo da aad u fog sida daraaddeed waxaan u baahanay dhowr shay الحلول المقترحة محيته waxay koow inaynu garanno wadcigeenu mujtamacan ku leenahay aan tusaale yar idin siiyo nimanka reer galbeedka la yidhaha markay wax baadhayaan marka wax la rabo in laga go'aan qaato waxa la sameeyaa marka hore baadhitaankaasoo ixsaa'iyaad leh oo taxliilaad istintaajaad wax walba wata baadhitaan rasmiya baa la sameeyaa baadhista dabadeed ciddii baadhitaanka samaynaysa iyo mas-uulka dadkii ahaa markay go'aan ka qaataan baadhitaankaasi waxay u gudbaan jaranjarrada labaad oo ah bulshaweynta sida loo qanciyo iclaamkii in markaasi qadiyadda tan uu qaadaa dhigo oo la soo faafiyo oo la soo dhigo oo si wanaagsan loo fahmo dabeetana waxay yimaadaan martabadda saddexaad oo ah sidii loo fulin lahaa مثلا aan ku siiyo tusaale مثلا daraasaadka laynagu hayo inagu isma ogin inagu waynu iska soconnaa مثلا mujtamaca soomaaliga markay ka warramayaan waddan ka mida waddannada reer galbeed ama ceebaa loo raadinaya ama la baadhaya ama waxa kan waxay yidhaahdaan xagga shaqada marka laga eego bay yidhaahdeen waa bulsho aan howlkar ahayn waxay ku cileeyaan oo ay leeyihiin ma aha dad u diyaara inay shaqeeyaan waxa lagu aqbalay lagu keenay waxa ka mid ah inaad manpower noqoto shaqooyinka fudud ee dadku u baahan yahay dadka waddan kala shaqooyinka sare haysanaya laakiin de shaqooyinkii kale hoose inaad adigu u qabato
وهذا مجتمع وحكا فايده لكن ما ديارها نيكا صومالي قاهي ومجتمع بيد هذان شقاء قون حرفة ماله ومجتمع بيد هذان لغة هرو فهمي كرين ومجتمع بيد كتل مامان حتى هيئة سويد هذا سوق الشقاء كما صعوته يعني ماركتينج كهرقلباتكم قفوا يقاناتشره كويرو قد حيرة أو طاي حيران وفايل يرسو حدا ومركو شقا دونيو لكن نيكا صومالي مركو يمادو يسوي قد كيسي وطا ودنين صومالي هذا أو يسوسو تاقو هبرت ميشي جوكتا أنو سلامينين هاي لغا يابينو كويدا لكن أنو قعان قادين محا يعني وحي لين سوق ماركت سوق الشقا كما هبا يدهدان قف تنافس بك قلي كره هيئة سانو أحين بيلي وهي مظاهرته يقو وحي وحقوقي ما يستنبي كمت مثلا حق التعليم توحي واركي يعني مجتمع مركزي هوران تعليم هورا وذنين ودندو يمي بيلي ددك واوين الصومالية دي يمي بيلاهدين بقول كيبا تضباطا أفكا ودن كما يبران بقول كيبا تضباطا بيلاهين أفكا ودن كما يبران عرورتو دو بيلاهين بقول كيبا سيديتا معلن قاربه وباهي إنه يدودو معلن كلاكو كبطوايا وحكا مي دراسات كيا وحي استبا السعودية وحي يوردن waxay dhahdaan gabadhoodu way ka sii aqoon liidata oo afka iyo waxan maba barato waxa laga yaabaa iskuulka inta warqad u qorato inay hesho laakiin markuu iskuulka waqtigiisa imanay daraasaadkana xad alikhwa baa igu kaalmeeyay markay timaado waqtigeedii inay uur leedahay ay tiraahdo sanadkan ma gali karayo sanadka dambe iga dhiga waraaq kale loo soo diro marka warqadda dambe loo soo diro inay noqoto waqtigii ay umulaysay wahaluma jara waxay iyagu ku waramayaan yani kuma fiicna bay leeyihiin baabkan dhaqankooda ijtimaaciga bay yidhaahdeen waa dad fawdawiyiina qaanuunka ma ixtiraamaan ballanka way ka habsaamaan wasaa'iqda ama waraaqaha la haysto way ku cayaaraan waa musawar halkuu iska dhiibaya waxbuu samaynayaa maalan waxay yidhahdaan false separation separationka beenbeenta ay yaqaanin baa la leeyahay ma aha dad qabiya soomaalidu waxay haysataa waxaan dadkan inay qabi yihiin aanay waxba fahmin laakiin nimanka gaalada waxaynu naqaanaa go'aamada ma qaataan ilaa ay daraasadooda dhammaystiraan oo isqanciyaan mooyaane sidaa daraaddeed waxay yidhahdeen separation qaldan bay galaan natiijaday gaadhaan muxuu noqdaa maalan nataa'ijtay soo saareen waxaa ka mid ay u arkayaan mujtamaca soomaaliga bay yidhaahdeen waa mujtamac muqliqa oo radical ah waa mujtamac xidhan oo radical ah radicalka maxay uga jeedaan waa diiniya waa mujtamac aan la fahmi karin maxay ku sababeeyaan waxay ku sababeeyaan kow waa mujtamac xijaabka xidha bay yidhaahdaan qofka xijaabka xidhan le dumarkeenna xijaabka xidhan le waxay u haystaan inay noloshaba qayb ku lahayn xijaab buu xidhan yahay مثلا حجابك مركي كورميان انغو قضايات waxaana ogeyn baa lagu tirinaya oo adigu wanaagaaga laakiin iyagu si ay u arkayaan midna waxa ay booliiska inta laga qaato sharci sawir leh oo xijaaban Soomaalidu waa 5% yani marka booliiska la tago ee la baaro faylkiisa ee la baaro wasaa'iqda dumarka xijaaban مسلم كله دقن هو بقول كي وشان يطبع وهي مركل عليها صور كان يدو صور كده سك قوية كانت لكن ده كصور كان صداي إن وده حجاب له معناه ده وحوي واصل مالي 85% بيده إن قوة سوا قوة كان مثلا واحد هذان سكول إسلامية ما لها لا قفرة شن يسديت أنقف بعد كتاب بيده كوبي يسديت بس صومالية بيده ومجتمع مركا ميلو صعده شن يستيتن قفداي دغتو كوبي سيديتن سوماليه هي ومجتمع الراديكال كو كم مقدا يغا نظردودا waxay taagan yihiin iskuulada bay dhaadeen hadii qadaayaadka ardadu ay ka doodeen diimaha iyo siyaasadda iyo waxa ku saabsan la soo bandhigo ama laga hadlo midaan
violence ka yimaada had iyo goor haddii diin wax laga sheego maalan islaamka haddii wax laga sheego dadka ugu badan ee ka xanaaqa markiiba kalaaska rabshaa bay yidhaahdaan ixsaa'iyaadku waa Soomaali marka tadayunka laga hadlo walidaalika baa wasaaradaha qaarkood waxay soo saareen kalaas aska afafka loo dhigtay Soomaalidu ku jirto inaan lagaga hadli karin oo macallinku aanu ka hadal qadaayaadka diinta iyo ku saabsan waxyaabahaasi waxay yidhaahdaan maalan umamka kale bay yidhahdaan markay ummad u yimaadaan inta badan waa la liqaa Soomaalida si waxaanu aragnay bay yidhahdeen nooc min mintidnimo qaaraan xijaabnayno halkan xijaabka ku qaatay bay yidhahdeen tusaale ay barkay bixinayaan gabadh markii ay timi aan xijaab sidan laakiin halkan uu Ilaahay wax ku fahamsiyo xaggan xijaab ku qaadatay waxay leeyihiin waa cagsiga markaa u socdaan iyagu xagga dadku u socdaba xagga soo horjeeda bay u socdaan ashyaadaasoo dhammi maxay tilmaamayaan waxa ay qaateen istintaajaadkooda markay isu geeyeen mujtamaca Soomaaliga inuu yahay alwariith الشرعي للأصولية dadkan usuuliyada la yiraahdo radicalka dadka dhaxlaya xaq u leh bahasha daba taaganinayn iyaga sadaradeed baa laga sheegay mustashriqiintooda mid ka mid inta khudbad jeediyay inuu kaga waramayay Soomaaliga dadka la yiraahdo inaan qof gaala lahayn hatta abu shuuci ha ahaado liberalism ha waxa aaminsanaado meel uu buu hadana bahasha kaga sii naban yahay buu leeyahay waxay naga qaateen natiijo oranaysa waa mujtamac mutafarriqa haddaad tiraahdo qadaayaadkooda iyo mashaakilkooda kala xidhiidho kala hadal ma jirto cid matasha wayagu siday u arkayaan 2,000 urur oo yar yar 2,000 wax iyo waxan bay wataan waxay qaateen aragti oranaysa waa mujtamac isagoo muqliqa ayaa dimuqraafigiis kobciisa badan bay leeyihiin haddana marka loo qiimeeyo mujtamacyada kale sadaradeed bay مثلا ihsaa'iyaadkooda waxay tilmaamaan xaafad kamida ihsaa'iyaad laga qaaday bay yiraahdeen 312 caruura muddo sanada ku dhashay xaafadii 312 caruur ee xaafadaasi ku dhashay muddo sanad gudihii 154 Soomaali dhashay bay yiraahdeen 157 na ummadda kale oo dhan baa dhashay muxuu ku tusinayaa markaa saambulka yari haddii meel yar xaafad yar bulshada degan ee 312 qof ku dhalatay 154 uu Soomaali noqdo 157 na dadkii kale oo dhan noqday waxay qaateen daraasaadkooda iyo ihsaa'iyaadkooda marka la isku daro aragti qaldan oo muslimka iyo usuuliga laga fahamsay koow oo lagu daro akhtaa'deena iyo gafafkeena laba oo lagu daro qaybsanaanteena iyo kala daadsanaanteena oo lagu daro xal u raadin la'aanta mushkilaadkeena oo lagu daro faham la'aanteena iyo mintadkeena inta marka la isku daro mujtamacaas sida ay ula dhaqmayaan ama sida ay u arkayaan muxuu yahay idinka ka jawaabi waxaan leenahay waxaad noqonaysaa mujtamac ghayru marghuub midaan la rabin ama midaan la jeclayn aqallu ma yumkin ama mid la neceb yahay haddaba waxaan leenahay aragtida ilaa hadda laynaga qaatayna hadday taa tahay fama alxal waa maxay xalku dadku inta badani waxay kolle maskaxdiina ka guuxaysa dee xal kale ma jira ninku waddankiisa qabto waa dhab iyagaaba yidhaahda dabaddu way fiican tahay bay dhahaan laakiin gurigaaga ka sii fiican hadday dabaddu fiican tahay oo qofku is yidhaahdo dabadda u dhoof inuu gurigiisa iyo waddankiisa uga sii fiican qof kastoo bini aadama waxaan leenahay mujtamacii hijroonayay ama guurayay waa gaar mujtamacan soo hadhaya ama meesha jooga maxaynu uga tagnaa maxaa uu u baahan yahay si uu u noolaan karo ninkii guuraya waxaan leenahay guur fabiha wa nicmat laakiin u diyaargarow sidaad u guuri lahayd kow kan hadhayna gaalnimaha uga tegina sidaad wax ugaga tegi lahayd
haddaba kan soo hadhay oo aniga ilaa hadda suuradda aan arkaya ay u badan tahay intii ugu badnayd muxuu noqon karaa xuluusha mustaqbalkooda wax ka ilaalin karta dhib bayna haysato Soomaaliyeedna xaggaana dhib badan oo kale inaga furanayo Soomaaliya laakiin waxa aad u habboon inaynu tanna in badan isha gelino oo waxaynu ka qaban karnaa inuu ka qabanno xalka koowaad ama muqtaraxa koowaad shayga soo jeedinta koowaad waxa koowaad aan isleeyahay soo jeedi wuxuu yahay waxaynu u baahannahay tacaawun iyo takaatuf iyo tawxiidi saf iskaash midnimo iyo kulan waayo kulanka iyo midnimadu waa la yaqaanaa waxtarkeedu intuu leegyahay nolosha waxa kaloo la yaqaano ee idin sheegaya galbeedku dimuqraadiyadda la ka jirta usuul bay leedahay dimuqraadiyaddu maaha cadaalad la iska wasaco saa dadka badhmoodayaan usuul bay leedahay ah in cid walba loo ogolaado xaqeeda inay dhacsan karto waa loo ogolaado laakiin hadday iyadu baylihiso cidi uma doodo cidda xaqeeda markaa baylihisa cid taloo tidhaahdo war nimanka xaqooda hala siiyo badani ma jirayso sida daraaddeed waxa la ogolaaday cid waliba inay yeelato organkii xaqiisa u diriri lahaa ee u dagaalami lahaa waa waxyaabaana maqashaan ee niqaabaadka la yidhaha organizationska ururka dhakhtarrada ururka dumarka ururka caynkan ururadani waa maxay urur waliba wuxuu ilaalinayaa masaalixda ummaddani ay leedahay ummadda dhakhtarku masaalixdeeda ururkooda u ilaalinaya ururkooda baarlamaanku hadduu ku xadgudbo ka celinaya ururkooda dawladdu hadday ku xadgudubto ka celinaysa ururkooda waxay xaq leeyihiin raadcaynaya ururkani wuxuu u dhisan yahay inaanu dayacmin xaq dhakhtarku leeyahay sida daraaddeed nin baa u heegana inuu xaqa dhakhtarka ilaaliyo waa urur jira ee ma aha intay ururada kale isu tageen may odhanin war dhakhaatiirta xuquuqdooda la siiyo hadday dhakhaatiirtu iyaguba aanay xaqooda raadsanin cidna lama ilaalinayso sida daraaddeed haddaynu rabno bulshada galbeedka joogtaa inay jiri karto ee Soomaaliyeed waa inay noqotaa raqma anfiha raqma ikhtilaafaatiha waa inay noqotaa dad wax ku midoobay wax isugu yimi masaalix wada ilaashanaya dad masaalix wada ilaashanaya oo isku midoobay ninka Soomaaliga ah kelimada midnimo la yiraahdo waqtiga kan marka laga hadlo ninka ka hadla nin riyoon ayuu yaqaana waa xaqiiqo jirta taas nin kastoo idinka mid ah ama dad ka mid ah dad midnimo iyo waxa kala hadasho waayo rawaasibtii ama wixii uu kala yimi Soomaaliya maskaxdiisa nin walba ka buuxa dadkii iyo reeriisa isugu madheen iyo sida loo kala fogaaday iyo dhibta meesha taal iyo taas baa nin walba maskaxdiisa ka buuxo war dadkani waxna midoobi kari maayo waxna iskuma lehe ha ku xiiqina iska daa in lagu yidhaahdaa meesha laga yaaba laakiin haddii kale wuxuu maad ku dhici dibiga madow waxa la cunay un goortii dibiga cad la cunay taasi waa qadiyo xaqiiqo oo ku haysan doonta waxaan leenahay jiritaan iyo badbaado jaaliyad Soomaaliyeed oo daba joogta wuxuu ku xidhan yahay midnimo hadday taa weydo ilaahay baa mustaqbalka og laakiin anigu inay dumayso oo baaba'ayso ayay iigu muuqataa midnimadu waa shay qiimo xadaariya weeyaan waa shay u baahan in qofka bini aadamka lagu kobciyo lagu barbaariyo lagu bisleeyo anigii tusaalaha maalintii dhaweydin siinayeen elementary schoolka meesha tan mooto iyo urur iyo wax in lagu badbaariyo waa wax u baahan dadku in lagu kobciyo caqliyadaasi waxyaabaha midnimada inagu kalifaya waxa ka mid ah baynu leenahay qillatul imkaaniyaat cid innaga inaga midoo gaar isu taagi kartaa ma jirto ama wadaad ha ahaado ama jabhadaada ama cid kale ha ahaatee halkan sidaad gaar isugu taagtaa way adagta xataa haddaad gaar isu taagto uu ka kale baaba'o
ma og tahay in ilmo Soomaaliyeed uu lumaa inuu kaaga dhib badan yahay ilmaha gaalkee kale ee aad la nooshay yacni gaalada ka soo jeeda waayo haddaad tidhaha waan un kuwaas waa jabhadii ama waa reer hebel ama waa kuwaasoo carruurtooda maxaa kaa galay de keensada masaajidkaanu dhaway keensa waay ama caynkaasi ilmihiisaasi mujtamaca Soomaaliyeed wuu kaga dhib badan yahay ilmayaasha kale Frenchiga meesha joogo dhan waayo dadkan buu la wadaagaa diirka iyo afka hal ilmo oo lumay inta Soomaaliyeed uu lumin karo 100 ilmood oo kuwa Frenchiga kaama lumin karayaan waayo kan wuu afgaranaya wuu dhexgeli karaya wuu raaci karaya wuu tusaale u noqon karaya waxaanay aqoon buu tusi karaya hormood buu noqonaya sidaaradeed waa kugu compulsory waa kugu qasab inaad ka fakarto ka khamriga cabaya xun iyo kaasaad ilmihiisa u hagaajin lahayd waa kugu qasab jaaliyadda tan sidaad u ilaalin lahayd iyadoo laga yaabo inay aabaha dileen kuwa halka jooga haddana isagoo aabaha dilay inankaagana dee wuu dilaya haddaanad hagaajin maxaad yeelaya kale waa kugu sandulle sidaaradeed waxaan leenahay waar midnimada tani marka halka la joogay Yurub la joogo haddii la rabo jaaliyadda tani inay sii noolaato oo sii jirto inay midowdo oo isu timaado waa arrin muhiima imkaaniyad yaraanteennu ama tamar yarideennuna inooma oggolaanayso inaynu meelo badan kala taagnaano si midnimadu u dhaci karto ama umbrella ay u jiri karto ama dadku tamartooda isugu geyn karo waa inuu nidaam jira organization ummadda Soomaaliyeed waxay ka mid tahay dadka ugu liita organizationska sida loo sameeyo ama siduu u jiri lahaa waayo culumul idaara waxba kama naqaano aad bay inoogu dhib badan yihiin haddaanay taas la helayna organizationkani ma jirayo waayo min طبع البشر waxa ka mid ah dadka wax isku darsada inay isku xadgudbaan quraanku wuxuu tilmaamaya wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd dadka in badan oo wax isku darsata badhka kale ku xadgudbaan laakiin waa inuu jiraa nidaam ka ilaalin kara dadka in badhka kale uu ku xadgudbo dhaqanka Soomaaliga waxa ah maamul ama urur ama cid wuxuu galaa markuu dadka hoggaanka markuu ku kalsoon yahay qura laakiin hadday kalsoonidu yara dhimato ama yara dhaawacanto waxba iskuma darsado waxaan leenahay waa inuu noqdaa waxa aynu kalsoonida ku qabnaaye koowaad systemka inta aanan hebel inaan isku kalsooniyo inaan isku kalsoonaniyo waxa ka fakirin waynaan ka fakaraa inuu systemka noo dhaxaynaya uu noqdo system aan iskaga qaban karo hadduu i hungureeyo waa inuu noqdaa system aan iskaga celin karo hadduu i xado waa inuu noqdaa system aan ku kalsoonaan karo inaan xaqayga ku ilaashan karo inta aanan ninkan heshiinin ama aanan isaga eegin waynay kalsoonidaydu koow ku salaysnaataa systemka kani inuu wax socon karayo uu noqon karayo sida daraaddeed hadduu callaan yimaadiyo hadduu fulaan yimaadaba systemkan sidiisii loogu talagalay haddii loo wado in la sameeyo dhaqanka Soomaaliga waxaa inugu badan infiraadiga yani waxa inugu badan individualismka waxa inugu badan kaliga haddaynu mas'ale isku khilaafno inaynu inta kale oo dhan ku kala tagno ma aha waxa inugu badan inaynan masaalixdii waxa mesela urur baynu samaysanay systemkiina waynu hagaajinay laakiin tuug xun baa meelun ka soo galay ama shaabadiibu ka faa'iideystay ama wax kale maalinta dambe waxaynu soo qabanay warqad baladiyada taala ama meel kala taala oo yaroo lacag ku qaatay ama wax ku qaatay inaga radul ficilka Soomaaliga waa maxay waa intii de kula fikrad ahayd ama intii intaad sugu yeedhayna tiraa black rebel waxay sameeyaan ama kale waa inaga dareeriye mid kale inoo sameeya ila baalkii uu qarrimo waa kan nimankii waxa ma ku samaysteen waxa ma ku sameeyay lagama yaabo inaad eegto warbahalkan iyo faa'iidada kuugu jirta iyo ninkan hadaad qaban karto saad u qaban lahayd ama ula xisaabtami lahayd ama aad meesha uga riixi lahayd ama waxan inaad ka fikirin baa laga yaabaa laakiin aad ka fikirto sidaad bahalkaba u mijaxaabin lahayd gebigiisuba siduu u dumi lahayd aanu sii jirin war waxay leenahay
basharku ma aha dad wada toosan waa inaynu fahamnaa hadduu midi maalin inay xado macnaheedu inaanay ahayn inaynan isu imanin hadduu midi maali shaabadda ka faa'iidaysta macnaheedu inaanay ahayn shaabadina inay ga dhaxaynin ee inaynu in badan garanno inuu system jiri karo inuu jiri karo qofka waxaynu isku waafaqsannahay inuu jiri karo job description shaqada aynu qofka ka rabnaa waxay tahay organizationka maamulun inaan la iska odhanin in la garan karo waxaan aad ugu celcelinayaa mas'alada tan waxaynu u baahannahay inaynu si fiican u fahamno oo daraasayno waayo alinsaanu caduwun limaa jahil war maamulku wax fudud maaha maamulku wax fudud maaha wax qof walibana qaban kara maaha waa wax u baahan xikmad iyo caqli iyo nidaam iyo deganaanshiyo waa qiyaada waa isku mid inaad masaajid yar hogaamiso inaad jaaliyad hogaamiso inaad ummad hogaamiso waayo basharku waa basharkii uun waa cayinaad waa sambalka ka yar iyo ka weyni waa isku noocun qiyaada waa qiyaada waxaynu u baahanay masalada inaynu aad u jilcinno oo aad u fahamno waayo haddaynan si wanaagsan u fahmin maanta intaynu dawladdu ina yaro dhibaatayso aynu xamaasadoonno urur waynu samaysan karnaa aynu ku wada jirno dhammaanteen laakiin mashkiladdaa yare ina haysataa maanta hadday danto oo ay baaba'do ururkuna wuu la dumayaa waayo xamaasaddan iyo ururkan iyo waxana waxay ku salaysnay inaynu qoladaa markaa iskaga cadaadino mar cadaadiskii laakiin hadduu dhammaado ururkiina wuu la dhammaanaya waayo waxaynan weli si fiican inaga dhaadhacsanayn qaab dhismeedka urur siduu noqon kari lahaa ama uu jiri kari lahaa ama loo wadi kari lahaa insaankuna had iyo goor waxaanu aqoon waa u cadow waxaan aad u xasuustaa nin walaalada inuu fadhiyaan u malaynaya ka mid ah oo raggii wax soo dhigtay jaamacadkii Soomaaliyeed ka soo baxay jaamacadkan kale reer galbeedka iyo meelaha galay ka mid ah ayaa nin kale oo walaalkii masaajidkan oo salabu accounts ka bilaabay accounting war wadaadada accounting iska barta bal sidan wax loo xisaabiyo waxa kan dabeetana waa la iska dhigdhigaystay maalin dambu ninkii eray buu yidhi war haade waa jaamicigii war shawjeebkaygaba sidaan u xisaabiyo ma aqoon buu yidhi waayo ma ahayn takhasuskiisa dhaqanka Soomaaliyeedna kama mid aha qofku inuu waxyaabo badan wax ku ogaado ama waxaas waxaan taa uga jeedaa in badan waa laga yaabaa idaaradu inay iskala fududay ama wax macno badan sameynaya inaanay ahayn laakiin ikhwati fillah waxaan leenahay mushkiladeena koowaad gun iyo baar waxay ku salaysantahay maamul xumo sadaradeed jaaliyada tani hadii jiritaan fiican laga rabo waa in loo daraaseeyaa oo la isugu dayaa oo loo fahmaa idaara fiican iyo maamul fiican say u heli lahayd oo midayn kara ama wadi kara kaasi waa qodobka koowaad ee aan u arkayo inuu muhiim yahay haddii kaa lagu saaqido waxaan u arkayaa humuumtaa weyn aynu rabno inaynu qaadno inaynan qaadi karaynin innagana markaad u fiirsato jaaliyaadkeenna ururadeenna islaamiga masaajidkeenna in file managementku ka xun yaaba laga yaabo sidoo xataa faylasha meesha la dhigay inaanay xataa meeshii hagaagsanayd ahayn si wanaagsan loo maamulo daaya ee kalsoonideenna iyo camal badnideenna iyo wixeenna inaynu iskaga wadno qadiyadda labaad ee aan u arko Yurub haddii la rabo in la sii joogo inay muhiimtay inaynu aad xoogga u saarno waa siyaanati al-usra wa cadam tafakkukiha inaynu ku dadaalno inaan qoysku burburin qoysasku inaanay burburin mar kasta oo qoys burburaba xagga halaagaynu usii badanayna inaynu dareenno qoysku inuu yahay mukawanaadkeenna asliga aynu ka samaysannahay bulshadeennu ay ka kooban tahay hadduu qoys ka midii ama qoyska burburkiisu hadduu bato ogsoono waa calaamad tilmaamaysa ummaddan burburkeeduna inuu badanayo waa calaamaadka lagu garto inhiyaari lumam inay familiesku burburaan haddaad ummad talaaqu ku badan yahay aragto ummad furitaan ku badan yahay haddaad aragto waa calaama sheegaysa inhiyaarka ama burburka ummaddan inuu sii soconayo badanayo sida daraaddeed
وإن organization كأنه شقوين كقواد أو كفكر يا ما وح قواد أو قبنا يا ما وح قواد أو حل كوين إسكسار يا إنه نقطة قيس بربرسدانو ينقول على حين وحناد الدريمية أنت إنه قلبات كان نمد لقن كفريتان كوينو نقبطي أدنى شيء إنه فريتان كوكدعه وحناد الدريمية يعني وحيابا بدن بهجرا صبابا إنه قرق بربره مثلا وحا الصبابا إنه الزواج مركه هو غير طبيعي قوركم مركه هو إنه سي طبيعي يودعين قاركا غير طبيعي waxa laga yaabaa inaanu inaga xageena ku badnayn had iyo goor gabadhii iyo ninkii la isku qasbi jiray ama labaana isba aragbo intay iskuursadaan markay sarkaan isku naxa hadhow isfahmi kari waaya ama asbaabta guurka keentay inay iska tahay asbaab yar oo iska caatifi iyo soke gabadhuna inta iskala yar qurux badnaatay oo iska guursadeetana mushkilad kale ka timi ama gabadho uu arkay inay waxoogaa ka urursatay meelaha kan socialadii wixii la qaadanayo hunguriska yara dhaqaalaba laga yaabo inuu meesha u galay oo sidii reeraha kula biilaysa ama kula caawiso ama guurku aan guur tabiici ahayn marka hore wuxuu ka mid yahay waxyaabaha inuu qoysku burburo keena waxyaabaha qoysku inuu burburo keena waxa ka mid ah al-ummiyya diiniyya diinto dadku ay ummi ka yihiin iyadoo aanay dadku si fiican u fahamsanayn guri samee mooyaane cilaaqada labada qof iyo waajibaadka isku leeyihiin iyo xuquuqda isku leeyihiin iyo waxa ay u baahan yihiin inay qabtaan waayo haddii taa la la'yahay dadku si wanaagsan isu fahmi maayo camalkiisa si wanaagsan u gudan maayo alamru bilmacruuf la heli maayo wacaashiruuhunna bilmacruufkii wuu lumaya walahunna midlu aladii calayhinna bilmacruuf wuu lumaya waxaasoo dhan waa la waayaya waxaa ka mid a burburka guriga waxyaabaha soo dedejiya anu waa tusaalayaalumaan tilmaamaya waxaa ka mid a iyadoo aanay joogin dadkii muslixiinta ahaa marka dhibtu timaado ummadeennii ama dhaqan bay lahayd ama waxbay lahayd wax lagu islaaxiyo reerku markuu isqabto odayaa dhex geli jiray qabiil baa dhex geli jiray tol baa dhex geli jiray saaxiib baa dhex geli jiray dadka cidda ku dhow baa dhex geli jirtay wuxuu ahaan jiray mushkiladan mushkilada aad in badan la isugu dayo bale quraanku wuxuu tilmaamaya marka laga baqo inuu gurigu burburo in la dhex galo wa in khiftum ba ilaahay yidhi shiqaaqa baynihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha haddaa ka cabsataan gurigu inuu burburo hala dhex galo laakiin inaga waxa malayn raadayay fikradan odhanaysa waa private arrimaha guriga waxaynu u naqaanaa halkan dadka jooga iyo dhaqamadooda inay yihiin arrimaha private-ka qofku uu gaarkiisa isaga leeyahay gurigiisa isagoo hadduu doonayana ha dhiso hadduu doonayana ha burburiyo waa iska qadiyad private ee cid kale inay soo farageliso iyo waxaas iyay jirin laakiin waxaan leeyahay waa qadiya aad u muhiima oo waxaan leenahay organka aynu dhisannaa mas-uuliyaadka ugu waaweyn uu qaadayaa waa inay noqotaa inuu habeen iyo maalin ka fakaro reeraha iyo noloshoodu siday u fiicnaan lahayd sidaanay guryaha kani u burbureen sidaanu talaaqu u bateen sidaan mushkiladani u timaadeen waxay leenahay waxyaabaha guriga burburkiisa keenay waxaa ka mid ah kathratu talaaq liadna alasbaab in furitaanku iska yimaado uun iyadoo aan wax badanba la isweydiin yacni adna shay in la isku furo war waanu isqabannay macnaheedu maaha waanu isfurray laba bini aadama meel wada joogaan isqabani ma jiraan laba qofoo bini aadam oo aan mushkilada dhex marin ma jirto laakiin macnaheedu maaha haddaanu isqabannaba xalku waa in la isfuraa maaha taas macquulla maaha waxaad moodaa dadku dhaqanka ay iminka u taagan yihin inuu iska yahay uun adna shay sababta ugu yar in la isku furo waxaan arkay mushkiladda ugu badan ee mujtamaceennan burburka qoyskiisa abuuray inay ka mid tahay dhaqaaluhu waagii hore dhaqaalaha nin baana ka mas-uulaha meel qurana wuu ka iman jiray laakiin hadda meelo badanna wuu ka yimaadaa dadkuna waa ku yaro shuraako dabeetana sidii loo maamulayay heshiisba kama yaala ama waxba kuma heshiis aha sida daraaddeed murankiisaa bata iyo furitaankiisu waxyaabaha ugu tirada badan lee la isku dilo reerahan galbeedka jooga waxaa ka mid ah adduunkaasi
yaa ka mas'uula baynu leenahay markaynu qadaayaadkan cilaajiyo mawduucaygu kuma saabsiisna inaan ka warramo guriga iyo burburkiisa waxa laga yaabaa muxaadaraadkii hore qaar ka mid inay ka warrameen laakiin waxaan leeyahay haddii la rabo mujtamacan galbeedka degani inuu jiritaankiisa sii wato shayga labaad ee u baahan in la ilaaliyo oo mas'uuliyad weyn la iska saaraa waxa weeyaan in la helo usluubkii loo ilaalin lahaa guriga qoysaska ka haddaynu ku guulaysanno ha noqoto dadku aynu uminimada ka saarno ha noqoto magaalo kasta aynu ka samayno guddi odayaal culamo ah oo reeraha dhex gala dadka hagaajiya hadday culamo iyo ka noqon waayo reer kasta xataa haddaa qabaa'iltiin qabiil kastoo loo sameeyo bal dhowr odayo mushkiladoodu ay noqoto inay reerka carruurtiisa iyo hablihiisa iyo waxa isqabtay inuu xallilo inaynu diyaar u noqonno mushkiladdaas waxaan leenahay waxyaabahaasi markaa waxaa ka mid ah reerka ilaalintiisu waxaa ka mid ah hooyada waxbaristeeda islaamiyan inay diinta si wanaagsan u fahamto in maraduun loo xidho maaha in la isku dayo in diinta la fahamsiiyo in la isku dayo in la fahamsiiyo bulshadan iyo say ula dhaqmi lahayd in la isku dayo in si wanaagsan wax loo garan karo gaar ahaan gabadha muslimadee halkan jooga dhibtu way ku badantahay waxyaabaha ku badiyeyna waxaa ka mid ah maalan adu meelahagaasaad iska mudhmudhleedoo ciddo kuma aragto iyadu maradeedaa weyn iyo haykalkeedan iyo dhaqankeedan iyo waxeedan oo dhammi waa taxaddi bulsho dhan bay ka soo hor jeeddaa iyo waxay haysatay oo dhan anuu shaadh iyo surwaal baan iska gashan oo wax badan ba cidiba igama garanayso nin madowin inaan ahay baa muuqata laakiin iyadu risaalo dhan baa muuqaalkeedu gudanaya saa daraaddeed culaysku wuu ku badan yihi maadaama uu culaysku ku badan yahay waa inuu bataa dulqaadku ninkuu dul qaadanaya iyo si uula dhaqmaya qodobka saddexaad ee aan u arkayo inuu xal u yahay jiritaanka bulshadani mustaqbalka soo socda inay jirto ee aan u baahannay inaan in badan ka fakarnaa waa inuu noqdaa siyaanatu اlatfaal carruurtu iyo jiritaankoodu siduu u sii socon lahaa qofka weyni waxaad adigu timi adigoo maskaxdaadu inteeda badan uu dhammaystirmay waa laga yaabaa in wax kuu kordhaan laakiin inteeda badan uu dhammaystirmay sida daraaddeed waxaad ka qaadato dadkani wax tirsan unbuu noqon karaa adiga inta badan waxaa laga yaabaa inaan gaalnimo lagaaga cabsan inta badan waa laga yaabaa in qaar ka midii dadka ay yaro dhacdhacaan ama khamri cabbaan ama suuqa yaro galgalaan ama waxa laakiin iyagoo garanaya inay qaldan yihiin laakiin ilmuhu qadiyadda wuu ka gedisan yihi aad buu uga gedisan yihi waa safaxaad jadiida u baahan sidii wax looga bedeli lahaa walaalkeen muxaadaraadkii uu galay baa waxaa ka mid ahaa inuu ina tusiyo ilmaha iyo sida loo tarbiyeeyo ama loo dhaqo laakiin maadaama aniga mawduucayga dhan quray kaga jirto wax yaroo kooban baan idin tusayaa wuxuu yahay haddaad rabtaan inaad ilmaha ilaalisaan inaan wax ka beddelno oo qof waloo inaga midiba uu aqbalo inuu wax ka beddelo usluubkii taqliidiga ahaa ee wuxuu tarbiyeyn jiray waayo bi'adii baa isbeddeshay soomaaliya markaad joogtay ilmahaaga waxaad ku odhan jirtay waxaas waa ceeb ee ha samayni ama waad ku yaro karbaashi jirtay wixii markaad ku tidhaahdo waa ceeb ee ha samaynin bii'ada degaankaa kugu saacidayey suuqa hadduu ku sameeyana oday ag maraya odhan jiray war ka yara wasakha ayaa dhalayoo ama dili jiray ama maagi jirayba ha samaynin waxaas waa waxun adeere madrasada lafteeda waxaa laga yaabaa in lagaga soo odhan jiray waxaasi waa xun yahay ha samaynin waxaasi waa xun yahayd bal samayntu haba dambaysee ilmaha caqligiisay degi jirtay inuu xun yahay marka laa tafcal ayaa laga yaabaaba tarbiyadaadu inay u badnayd
waxay u badnay tarbiyadaadu inaad adigu cid kale u wakiilato in ilmaha ay kuu tarbiyayso malcaamadii iyo iskuulkii iyo masaajidkii iyo meelihii suuqii iyo wakaa intaad haleeshaaba iska yarayd laakiin ilmaha kani wuxuu ku nooliyey mujtamac mutanaaqida adigu kaad ku lahayd waa ceeb ee ha samaynin ayaa waxa lagaga leeyahay halkan dhow ama iskuulku subax kasta tago ayaa waxa lagaga leeyahay wuu fiican yahay bulshadiina practically buu uga arkaya inay fiicanta arrintii markaa waa mutanaaqid yani maalan marka aan tilmaamno iskuulkoo qura iskuulladana carruurtu tagto ilmuhu wuxuu soo bartaa subject ay ku tilmaamaan crop solving iyo swimming ama jidhisid iyo dabaalasho waxaynu naqaanaa jidhisidda carruurteenna marka iskuulka la barayo rag iyo dumar waa la isku daraa isku meel bay ku cayaaraan waxaan naqaanaa meesha lagu maydhaa waa fallas waa ka dhaxaysaa dadka o dhan intii isku noocaba raggana dhan baa loo dareerayaa un dumarkana dhan oo dadku isagoo wada qaawan carruurtu bay wada maydhataa waayo mabale meelahooda lagu maydhaa bahashan yar ee la soo daaya mabale ceebna ma aha dadku inamaduna inay halkaa wada galaan iyagoo wada qaawan habluuna inay halkaa wada galaan iyagoo wada qaawan waxaynu naqaanaa dharka lagu cayaarsiinaya inuu dhar la wada noocay ilmaha iskuulka waxaa loogu soo dhigaa subject ah sexual nervisning ama subject ah aljins galmada ninka iyo naagta ka dhacda iyo say u dhacdo waa subject ka mid oo ilmaha iskuulka loogu soo dhigayo ilmaha iskuulka waxaa loogu soo dhigaa maalan music oo muusigaasi ay la socoto heeso intooda badan ee christian iyo traditional hore oo wada diin ku salaysan uu ka soo jeedo waxaa loogu soo dhigaa inuu barto jidhka iyo saa loo dhaqdhaqaajiyo iyo waxaan cayaarahan ay sameeyaan ilmaha waxaa loogu soo dhigaa iskuulka ka mida heimkunskap oo ah inuu barto maalan sida wax loo kariyo maanta o dhan baa waxaa la barayaa doofaar iyo sida loo kariyo khamrigay ku daraan marka wax la karinayo lagu shiilaa lagu sameeyaa kijan noocaasiyaa laga yaabaa inuu galow soo sameeyo ilmaha waxa iskuulka uu ku dhigto waxaa ka mid a forming art dabeetana wixii la doona la yidhahdaa sawir ilmaha konton wuxuu adigu aad halkan kaga lahayd ma hagaagsanaa halkan iyagoo hagaagsan u arkaya suuqiina iyadoo hagaagsan buu ku arkaya dhib weyn baa ilmahana haysta markaa haddaad adigu dhibtan dareemi weydo aad tidhaahdo un ha samaynin ilmihii ha samaynin baan ku idha waan ku tarbiyeeyo wuu aqbali waaye dee waa si qaldan waa inaad ku tala gashaa ilmahan dhibta intan leeg sidii aad uga fudaydin lahayd saa daraaddeed anna keligay wakhti uma hayo adna keligaa wakhti uma haysid anugu kayga keligay ma tarbiyan kara adna kaaga keligaa ma tarbiyan kara noolaydeen iyo waxaa laydinku soo tallaalay caqiido saxiixiya waxbaad soo qaadatay dabeetana adigoo iska tallaalan baa timi halkan xanuunnada halkan yaalla xoog kuu mudi maayaan ila waa tallaalan tahay laakiin ilmahan cidima tallaalin weli tallaalkaa ma hayo waa inaan abuuraa organkii ilmaha kan tallaali kari lahaa organka ilmahan tallaali kara waa inuu noqon karaa meeshii uu ka heli lahaa caqiida saxiixa waayo alcaqiida saxiixa waa baabka koowaad ee lagu xidhi karo sadda yacni baab ilmunxarifiin waa waxa koowaad ee lagu xidhi karo waa inay jiraan organadeenna waaweyn aynu doonaynaa maadaamaan idhi ahmiyaddeenna koowaad laba meelood waa inaynoo saarano carruur iyo guryo baynu nidhi waa inay carruurtan u samayn karaan meel ay ku bixin karaan daaqadooda tamartooda ilmuhu waa wada tamartan inuu bixiyaa buu u baahan yahay enerjiga kan waa inaynu u samayn karnaa meeluu ku cayaari karo kashaafo iyo boy scout iyo wax loo kaxayn karo musaabaqaad iyo sabaaxo iyo wax maaha uun afar ama masaajidku 10 inan intuu kaxeeyo uu meelgeey waxa war waxaan leeyahay jaaliyadda tani waa inay yeelan kartaa aqallu maa yumkin environment inanka yari uu kaga nasan karo wixii xagga kale lagaga soo akhrinayay aqallu maa yumkin wixii wax mudaad ku oo ka hor jeeda bal in lagu akhri karo inuu heli karo waa inaynu isku daynaa ilmayaasheennu inay lumaan waxyaabaha ku kalifo waxa ka mid ah iskuulkay ku fashilaan deetana waxaa arkaa inaynu iskuulka ku fiicnayn
waayo marka hore inuu siyaabo qaldan u dhaqanno ama nin weynoo 16 jir intaad keentay baa tiri waa 8 jir dabeetana waxaa la yidhi kalaaska 8 jirrada ku xareeya caqliguba wuu ka hallaabay kalaaskii 8 jirradana wuu fahmi kari waayey wixii la dhigdhigayay waxana hor uu afgaran waayo suuqu iska galay war meeshan meel la jooga maaha buu yidhi iskaga tagordo waxaa laga yaabaa inaad keentay ilmo intanaad sheegaysa wuu jira laakiin male background hore waxbaba muu soo baran adna uma diyaartid inaad saacidid iskuulkiina wuu tegey aabbi iyo hooyada keenayna waxaa laga yaabaaba inaanay tacliimba ku dhaamin ilmihii baad soo kaxaysay 11 jir 12 jir buu maraya adna tacliimba kuma dhaantid hooyiya aabatoona iskuulkii markuu tegayna wuu la qabsan kari waayo ilmuhu muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa dee inuu iskuulkan iyo waxaan naco afkii hore u fahmi waa meeshii hore uu la qabsan kari waa shaqada u hadhay waa maxay de waa shaqada uu qaban karo de inuu qabto oo inuu meelaha qadaadka xiirto oo diskooyada iyo meelaha iska tago oo kubadaha iyo waxaa daadaawado oo meelaha ordo waayo taa unbuu iminka arkayaa inuu energyna u hayo samayna karayo tii kale u taag waa oo tabardarra ku haysa idan maraakisteennani waa inay noqdaan meelo ilmahan uu taaqadiisii ama enerjigiisii ku bixin karo meelo lagsayaal buu ka heli karo ilmaha kan tacliimtiisii kobcin kara si aanu u lumin ama aanu fashalkan tirada badan le u dareemin meelo shirkad ka mida maalan shirikaadka wax kireeya ayaa ixsaa'iyaad bay samaysay markaase waxay ku leeyihin waxaanu soo ogaanay dadka ugu badan ee guryaha burburiya inay soomaalida yihiin dadkii guryaha ka kiraysanayay meel kasta meeshan waa la istaba socdaa ilmahaaga yar meeshuu jeexay adu waxaad talaadin waa meeluu jeexay markay ku tiri shirkaddu guriga ay sameeyaan lacag bay kaa qaado lacagtiina waad siisay waxaad talaad qadiyadu intaas ku dhamaatay kuma dhamaan kitaab kale ku jirta ihsaayaad bay soo sameeyeen waxay leeyihiin markaanu baadhnay dadkii guryaha naga kiraysanaya kundayaashayada cidda ugu badan ee guryaha jajabisay bay yiraahdeen waa Soomaalida waxay isku dayeen inay reasoning u sameeyaan maxaa sababay sababaha waxaa la tilmaamayaa dadka wax sababaynaya qaar ka mid waxay sheegayaan waxay leeyihiin sababaha koowaad waxa ka mid ah Soomaalidu bay yiraahdeen ilmahooda waxay ku cayaaraan oo ku filan baanay u yimin saadaradeed bay guriga ku cayaaraan bay dhahay ma u malaynaysaa in xaqiiqadaasi jirto ilmaheena iyo ilmaha gaalada markaad soo eegto alaabta lagu cayaaray guriga taalla inay isku dhadhowday miyaad u malaynaysaa maya ilmihiina uu cayaar buu rabaa dabeetana markuu waayey wixii uu ku cayaaray dee gurigii buu ku cayaaray idan ilmahani daaqadan kolleyba inuu bixiyaa buu rabaa ama meel geeyo ku soo cayaarsii ama adigu wuxuu ku cayaaro u samee ama naadi samaysto meel uu ku cayaaro u samee yacni sida lagu daba socdaa muxuu raadku samaynayaa maalan laba bahal iyo 10 yar yar oo ku cayaaro 100 karoon oo cayaaro aynu iibin kari weyn wax laga yaabaa mustaqbalka inay raadka dhalisaa uu noqdo in guri laynaga kireen waayo oo shirkad hebla markay ihsaayaadkan soo saartay shirkad hebla ihsaayaadkan soo saartay in guri la'aan ku dhacno meelaha qaar koodna ficlan waa lagaga jira guri la'aantaas oo laga yaabo marka lagu garto in Soomaalida in guriba laga kireynin war waxaan leenahay bulshadan aynu la noolay sida aynu rabno inaynu la noolaan iyo sida ay rabaan inaynu la noolaadaan waa kala nooc inaynu wax fahamno oo isku dayno markaynu fahmno inaynu la dhaqmi karno ayaa aad u muhiima sadaradeed waxaan leeyahay مثلا markay masalada ciyaarta ka warramay waxay dhaadaan ilmaha Soomaaliyeed waa kuwa ugu rabsho badan bay dhaadaan iskuulada iyo xataanatul atfaalka caruurta meelaha lagu hahayo yar yar waayo deesaynu inagu wuxuu tarbiyeynaya say u tarbiyayaan baa kala nooc ilmaheena iyagu ilmahooda waxay baraan laba shay waxa la yiraahdo waxani waa ikaloof sharci maaha iyo waxaagii maaha ilmaha yar markaa saa loo tarbiyay gurigooda isagoo joogo aabihii wuxuu leeyahay kana naale waxaagii maaha waxa aabihii markaa iska dhigaya marka reerka guriga degani waxa la leeyahay uu kala soocan iyaga ilmuhu wuxuu leeyahay waa soocan odaygu wuxuu leeyahay uu soocantahay islaantu waxay leedahay way soocantay waxa lagu tarbiyay laba eray oo ah waxani sharci maaha iyo waxani waxaagii maaha inaga keena laakiin inta badan tarbiyada ma wato waxa la yiri markii xadaanatul atfaalka la keeno ilmaha yar ee Soomaaliyeed kuwan ciyaarta haystaan buu ka qaadanaya tii loo dhibay halku iska dhigaya moogti kani to haystaan buu ka qaadanaya hadduu kani sira giijiyo iska dhufto oo yiraahdo waa waxaygiina uu kula dagaalamaya
waayo isagu wuxuu bartay walaalkiisan ka weyn inuu ku qabsado waxa uu kula dagaalamo oo odayguna yidhaaha war ilmuhu ku cayaaree si lama yidhaha war waa wixiisiiya uga tage ka weyn baa la dilaayo la yidhaahaa si inanka yaraa ku cayaaro oo looga qaada dariiqadaas isagu soo bartay maadaama uu dariiqadaas soo bartay markuu xadaanadii yimaado carruurta dadkii kale wuxoodii ku qabsaday habartii carruurta haysay waxay ku leedahay ikaloof iyo kaagii maaha oo isagaa uma jeeda ikaloof iyo kaaga maaha tana weligiiba ha fahamsanaado uma jeedo waayo qaabka loo tarbiyeeyey baa ah wixii isagu guriga ka helay ama ku cayaari kara ama waxa kana inuu samayn karo waxyaabaha kan uma jeedo mudxikaadka inaan idinka qosliyo laakiin waxaan u jeedaa inaan idin dareesiiyo dareemada laynaga qabo iyo sida laynoo ilaalinayo iyo ixsaa'iyaadka iyo daraasaadka inugu socda dadkan aad qabiga moodaysaa dad hurdo maaha waxay ku gebagabeeyeen maalan ixsaa'iyaadkooda ama waxyaabahooda waxaa ka mid ah ilmahan soomaaliga ahi waxaan uu rabshad batay dad kale wuxooda ugu haysta wuxuu ku cayaaraanay siinin bay yidhahdaan iyagu qodobkii bay ku celiyaan una wixii uu ku cayaari lahaayee nafka haya waxan baanay u iibinin ikhwatii fi lcaqiida waxaan leeyahay markaas qodobka saddexaad ee si jiritaankeennu uu sii socon karo meesha tan aan arkaya inuu muhim yahay waa in aynu garanno sidaynu u ilaalin lahayn ilmaheenna kan iyo mu'asasadii dhowri lahayd ama cala alaqal tadciim siin lahayd ama waxbari lahayd ama wax u kordhin lahayd sidii loo abuuri lahaa qodobka afraad ee aan arkayaa wuxuu yahay si jiritaankeennu uu sii bato ama uu sii socon karo ama mustaqbal aan u samayn karno waa inaynu diyaar u noqonnaa waxaanaynu xambaarsannahay ee afkaarah ee diin ah wanaaggeeda inaynu bandhigi karno dad kale gaadhsiin karno inaynan innagu isku xidhnaanin uunoo joogin ee inaynu isku dayno waxaanaynu xambaarsannahay ee aynu sidno ee wanaagga aynu arkayno in dadku inala wadaagi karo inaynu dadka naar ka badbaadin karno inaynu markaa dacwa samayn karno dadka kalena mabaadi'da tan iyo waxaynu rumaysannahay u bandhigi karno qaabka ugu wanaagsan ee loo bandhigi karaana wuxuu yahay inaynu xumaheenna yarayno yacnii inaynu badinno ku dhaqankeenna islaamka macnihiisu wuxuu noqonayaa inaynu sidii ugu fiicnayd islaamka u soo bandhignay wa ilaa dee kuwii lalahaa kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun inaynu ku biirnaabaan ka baqaya waa inaynu noqonnaa dad saxaabadii hijrootay waxay isku dayeen wixii ay hayeen inay dadka u soo bandhigaan ummad kasta maalan najaashi bay u hijroodeen hijraday hijroodeen inkastoo kuwaynu de inagu hijroonnay ay ka gedisnayd laakiin waxaynu dareeminaa in iyaga cidi ka luntay dad kastoo meel kala taga cid baa lunta iyaga cid baa ka luntay cidna way kasbadeen iyaga cid baa ka luntay oo qaar baa kiristan ka noqday cubaydallaahi ibnu jaxash wuu ka kiristaanooba wuu ka luma laakiin iyana cid bay kasbadeenoo madaxweynihii bay islaamka soo geliyeen boqorkii najaashi ayaa ku islaamay gacantooda idan inaynan diyaar u noqonin un in innaga cid inaga lunto unoo inan odhan xejiyaydan unoo bes inaad uun seerkalkan soo xejiso unoo wixii kaa lumana inta kale xejiyo qure inaad isku daydo dee inaad adna xagga kale xaggan hadday qaar ka baxaan inaad adna xaggan qaar kaga dari karto ilaan islaamnimadu waxay ahayd in la helo bulsho muslime ee in soomaali uun la ilaaliya ma ahayn muhimkee inaad adna bal dhanka kale ka kabi karto marka aan soo koobo waxaan leeyahay dhibta ina haysataa way badantay dhibtaa ina haysatana dee innagaa soo doonanoo nimi cid ku casuuntay oo aad maanta u cadhaysantayna waxba yay jirin nin waliba dhowr kunoo dollarna uu soo bixiyey dayrudana uu soo fulay halkanna wuu ka soo dhacay sidii meeshan inta aynu joogno aynu wax uga qabsan lahayn ciddii noqon karaysa ee markay noqoto kuwa ay arkaysa inay sii joogayaan ay u noqon kari lahaayeen kuwa sii noolaada markaan hadalka idiin soo koobo afartaa shay aan isku dayno aniga muqtaraxaadkaan arkaya waa afartaas kow inaynu midnimo raadin karno
laba inaynu organisation samayn karno systemku yahay kaynu kalsoonida ku qabno organisation jiri kara oo inoo ilaalin kara wax oo systemku noqdo kaynu kalsoonida ku qabno ee aanu dadka qura noqonin saddex muhiimadeenna koowaad ee aynu qabanaynaa inay noqoto guryuhu inaanay burburin inaynu ku dadaalno guryaheenna familiesku inaanay burburin waayo burburka familiyadu waa calaamad tilmaamaysa burburka ummadda ama mujtamaca saddex afar inaan abuuri karno oo kaa guriga uun ka mid iyo burburkiisa ilmaheennu meeshii uu waxa kan ka heli lahaa si aanu u lumin tarbiyada wanaagsan meeshuu ka heli lahaa maraakistaasi waaweyn ee aan inay qur-aan ku akhrido qura u diyaar ahayn yacni innagu waxaynu diyaar u nahay inta badan malcaamadda in la geeyo malcaamadda waa khayr waana waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay laakiin u diyaara ilmaha kan baahiyihiisa cala alaqal inay wuxuun ka buuxin karto hadday cayaartay iyo hadday caqiidatay iyo hadday diintay iyo hadday cilmi kororsi tahay iyo hadday lagsayal tahay iyo hadday wax kala tahay baa ilmaha kan mu'asasadii ilaalin lahayd inaynu unki karno afar inaynan munghaliqiin ama dad daboolan noqonin ee isku dayno dadka kalena inaynu soo jiidi karno kuwaas waa muqtaraxaad aan arkayo laakiin waxaan kaloo arkaya in caqabaad ka sokeeyaan mushkilaad tiro badan leh caqabad tiro badan leh caqabadaha iyo mushkilaadka ka sokeeya waxay u baahan yihiin dadkii xallili lahaa waxay u baahan yihiin dadaal badan waxay u baahan yihiin wakhti badan waxay u baahan yihiin maskax badan waxay u baahan yihiin adduun badan haddiise dadku uu intaa ku talagalo inuu ku bixiyo biidni illaahi tacaala ilaahayna wuu waafajin doonaa waa la samayn karaa carqaladi markay idinka hor timaaddo ha ka dhigina inay carqaladaasi tahay wixii ugu dambeeyey umamku negotiationka iyo xiwaarka iyo wadahadalka sanawaad bay wadaan ilaa iyo inta laga gaadhayo maanta EAU-da ama yurub midnimadeeda arkaysaan EEC-du 5 waddan bay ku bilaabantay 5 waddan baa sameeyey sidii dood iyo wadahadal u socdaa maalinba midi soo biiris sidii dood iyo wadahadal u socdaa maalinba midi soo biiris 12 waddan ee la yaqaanay markii dambe noqotay sidii loo waday baa iminkana waad aragtaa in laga sii wado oo lagu sii wado in maca yurubta bari maca meel kale lagu soo dari karo laga sii wado oo lagu sii wado sidii xataa sulطaadka dawladaha loo yaray lahaa ee mid qura looga dhigi kari lahaa iyagoo waxaad ogtahay ay kala gaadheen maxaa kala gaadhay yacni taariikhdu in la daraasayaa bay u baahantay waxaa kala gaadhay dhib maalan germany yurubta kale waxay ku fakeraysaa inay dunida gumaysato jarmanle wuxuu ku fakerayay inuu yurub gumaysto dabeetana yurub buu laayay oo gumaaday oo xuruubtii la yaqaanay ka dhacday ee hitler iyo wixii nimankii waxaa isku sameeyey haddana waa kuwa uun arkay in danahoodu isugu jiraan uun inay isu yimaadaan ama iskaashadaan ama wax isku darsadaan ama waxa laakiin isku darsiga iyo iskaashiga iyo waxa kaasi wuxuu maray wax habeen iyo maalin baaris miyaa la odhan jiray habeen iyo maalin laguma dhisin wax habeen iyo maalin ku dhismaya maaha sidaa daraaddeed dhowr shayba waynu u baahannay oo arrintaa qarbiga aan tilmaamayo kale ah daraasaad inaynu samayno shayga koowaada ku saabsiisan mujtamacyadeenna tan sidaynu u midayn karno ku saabsan carqalaadka ka hortaagan sidaynu u fahmi karno ku saabsiisan ixsaa'iyaad inaynu adeegsanno iyo waxyaabaha dadku adeegsadaan markay wax baxsinayaan laba waxaynu u baahannay waxaas ciddii baadhay ama wax ka samaysa inay isku daydo inay tawciyo geliso markaa ummadda inay fahamsiiso mashaakilkooda inay muqtaraxaadka ay arkayso u soo bandhigi karto inay wadi karto mar saddexaadka waxaa iman doona
in la heli karo ciddii ka qaraar qaadan karaysay ama ka go'aan gaadhi karaysay ama organisation kan abuuri karaysay ama waxaan gaadhi karaysay laakiin waddadaasi waxay aniga ra'yigayga igu muuqataa inay tahay waddo lagu badbaadi karo waxa ka sokeeyana u dhibiyay idinna waa laga yaabaa inaad waddooyin kala arkaysaan laakiin waxaa idinkula talinaya inaad baxdiga badisaan kow baadhitaanka inaad badisaan wada hadalkana inaad badisaan ijtimaaciyada iyo is-arag iyo isu imaatinka biayi ismin isugu kaalaya inaad badisaan daalkana inaad yaraysaan ninka soomaaligii wuu niyad jab ogyihi waa calaamada aan arkay inta badan hadduu wax isku dayo hore u gaadhi waayo wuu niyad jabi ogyihi in la isku dayo in la gaadhi karo dariska kan cumuuman waxaan ku soo koobayaa intaas